waxaan salaamaa gudoomiyaasha gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha Yariiso gudoomiyaha Cabdiqane gudoomiyaha Cabdilaahi Waafu gudoomiyaha Sheekh Yuusuf iyo odayaasha dhalinyarada qalabka sido iyo lama doonada iyo haweenka ururka haweenka dhamaan waa salaamantiin salaan kadib wax dhib hadda maanta ma jiro maanta waxaan ka hadloo hayna wax danahayna ah iyo walaalahayna oo jaalid jiraan oo igna inuu soo qalan qaabiyeen haddii ilaahay diidan jaalid walaalahayna waxay inuu soo qalan qaabin waa raacnay waana raacsanahay macal gudoomiyaashiina odayaashiina dhalinyaradayna ciidankayna gobolka Shabeellaha Hoose dadkiisa oo dhan way raacsiin waxaana ka rajeeynaa gobolkeena gacanta noo soo galo aniga dagaal nabadoonana dagaal doon manay dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa gacan saddexda gobol waxaan ka rabnaa gacan dadweynaha gobolka Shabeellaha Hoose ku nool waxaan ka rabnaa dhulkooda in loo xoreeyo iyagana gacan ay ka hesho dowladda aniga iyo dadkeena iyo xoolaheena iyo dhulkeena iyo diinteena waxaan jeclahay nabadoonanahay nabad inaan helno oo gacan nala siiyo oo macnaha meel aan u janjeerin oo nahay dad shicib ah oo dalkooda ku nool gobolkooda ku nool oo raadinaya nabad oo beerahooda iyo xoolahooda daqsanaayo iyo ganacsigooda wato marka waxaan dhihi lahaa hadda hadii ilaahay diidan haddana waxaan rajeynaa inaan nabad aan heli doono waan ka baxay halkan waxaa isugu yimid dhammaan culimadiinka nabadoonada salaadiinta faamada ugaasiyada malaaqyada ururka dhalinyarta ururka haweenka ciidanka qalabka sida dhammaan barnaamijka isugu yimidna wax kale ma aha halkan waxaa ku midoobay dhammaan ciidanka madaniga ee qalabka sida ee gobolka Shabeellaha Hoose oo midoobay iyo maamulkooda saraago intaba sidaas daraadeed waxaan halkan ka cadeynaynaa ama ka aqrinaynaa magaca ay ku midoobeen dadyoga Shabeellaha Hoose kadib markay isku tageen odayaalka culimadiinka dhammaan ee arkeen fiiriyeen aqriyeen waxaa la muhraan noqotay in la suubiyo barnaamij ama urur la magac baxay ilaaliyaasha shacabka Shabeellaha Hoose Shabeella People's Guard haddaan ku sheegna luqadda qalaadka ah sababaha iyo baahida keentay in ururkan la dhiso waxaa ka mid ah number 2 dhibaatooyinka baaxadda leh ee dhinaca nabadgelyada iyo arrimaha bini'aadanimada iyo horumarka iyo kooxaha argagixisada ay ku hayaan shacabka iyo deegaanka Shabeellaha Hoose lambar 2 shacabka ku nool Shabeellaha Hoose oo la kulmay gumaad kufsi dhac boob dil intaba isku socodkii deegaanka oo adkaaday muddo ka badan 12 sano ee shacabka waxa ay ku jiraan dhibaatooyin baasan taasoo la ogaaday in aan dowladda ama maamulka kale uusan wax ka qaban karin ilaa ma la helo dadyoga deegaanka in ay gacan ama garab ay ka siiyaan sidaas daraadeed dadka deegaanka Shabeellaha Hoose si ay u sugaan nabadgelyadooda badbaadiyaan carruurtooda iyo dhalinyartooda sharaftooda haweenkooda dumarkooda dhammaan ay u helaan wadadii horumarka ayaa ururka waxa uu haystaa ururkani wuxuu haystaa taageerada inta badan shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan culimadiinka odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanada dhalinyarada haweenka iyo dhammaan qurbo-joogta Shabeellaha Hoose sidaas daraadeed wada tashi badan oo arrintan ay ka yeesheen dadka deegaanka Shabeellaha Hoose waxaa maanta suurta gashay in deegaanka marka ee gobolka Shabeellaha Hoose loogu dhawaaqo ururkani la magac baxay ilaalada shacabka Shabeellaha Hoose haddaan ku sheegno afka qalaad Lower Shabeella People's Guard
haddaan waxay ka taataaban mabaadi'da ilaalada shacabka shabeellada hoose ama ururka waxay tahay in ay gacan ka geystaan sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaali lahay deegaanka shabeellada hoose iyo gobolada dariska la ah. ururka wuxuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda federaalka Soomaaliya, midka koonfur galbeed dhammaan iyo ciidanka Amisom sidii dadka shabeellada hoose ay iskugu tashteen loo gaarsiin lahay nabadgelyo iyo isla markaa dhammaan dadka ku nool gobolka shabeellada hoose. maamulka ururka ilaaliyaasha shacabka shabeellada hoose maamulka ugu sareeyo Cabdullaahi Waafow, sidoo kale Sheekh Saalax, sidoo kale Maxamed Yariisow iyo Cabdiqani Boolimow aniga waxaan ka codsanaynaa dhammaan dowladda federaalka, maamulka dowladda federaalka iyo maamul goboleedka koonfur galbeed Amisom International Community-ga dhammaan arrintan ay gaareen dadyoga shabeellada hoose in ay gacan ka geystaan, taasoo noqon karta wadadii nabadda, xasiloonida iyo horumarka ee gobolka dhammaan dadka Soomaalida ku soo dabaali lahay. waxaa noo harsan ururka qaybihiisa ama saraakiishiisa kala duwan. waxaa kaloo jira maamulin ama maamulo dadban oo haydan ah aan dib ka soo sheegi doono, iyo habka ciidanka deegaanka loo dhisi doono. ciidankan oo ku midoobay in ay qorayaan dadkooda una shaqeeyaan si dowladnimo ah. ururku ma aha urur madax banaan ama urur mucaarad ah ku ah mucaarad dowladda koonfur galbeed ama dowladda federaalka. intaba ma aha. ururkan waa urur u istaagay danihiisa, doonayo in gacan laga siiyo ama dowladda koonfur galbeed ay ka siiso gacan. waa urur doonaya oo kaliya in sharaftiisii dadkiisii uu badbaadsado. ma ahan mar labaad iyo saddexaad baan ku celinaynaa urur mucaarada ama dowlad koonfur galbeed ama dowladda federaalka ka soo horjeeda. waa urur u taagan inuu iska dulqaado argagixisada dadka dhibay ama dhibaateeyey 12 sano in ka badan. sidaas daraadeed dhammaan caalamka ama dadyooga daneeya gobolka shabeellada hoose nabadeeda waxaa la socodsiinaynaa ama ugu baaqaynaa in ay barnaamijkan xoojiyaan ina gacan ka geystaan. waxay aan qalday hadalay hilmaanku ma jiro. waxaan qalday ama waxaan ka tegay waxaan soo xiri doonaa barnaamijka gudoomiye Yariisow Maxamed Yariisow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. gudoomiyaha hore u sheegay anigoo ka wakiil ah mudane Cabdullaahi Waafow ku hadlayo magaciisa iyo magacaygaba iyo magaca shacabka gobolka shabeellada hoose. hadal badan wax ma taro. waxaan leeyahay ururkan waxaa loo dhisay in ay badbaadiyaan shacabka gobolka shabeellada hoose dhibaatooyinka haysta, kufsiga, guri gubidda, wax walba colaadaha kusoo badbatay gobolka shabeellada hoose inay ka sifeeyaan nabadgelyo waarta ay helaan shacabka gobolka shabeellada hoose. dhibaatooyinkii lasoo maray iyo hadda wax taagan waa masiibo ilaahay askeenoo qoran, laakiinse dadyooga ku abtirsada gobolka shabeellada hoose waxay go-aansadeen inay samaystaan ciidamo badbaadiya shacabka gobolka shabeellada hoose. maahan ciidamadaasi mucaarad, waxay hoos tagaan maamulka koonfur galbeed inay la shaqeeyaan, dowladda dhexe inay la shaqeeyaan, cid alla ciddii nabadgelyo wadda inay la shaqeeyaan oy shacabkooda ku noolaadaan nabadgelyo. tan kale labaad, dhibaatooyinka hadda hor leh oo argagixisada ay ku hayso meel kasta Soomaaliya ka jirtaa, laakiin gobolkeena aad iyo aad isu saameeyey. waxaan rabnaa in laga caawiyo oo la iska dhiciyo shacabka, kii beer falnaayo, kii xoolo dhaqanaayo, nin walba oo shacab ah in la iska dhiciyo nimankan qaladka ku socda, afduubka badan, caruur afduubanayo, wax walba samaynayo. taasina waxaan ku codsanaynaa inay naga caawiyaan maamulka koonfur galbeed oo annaga aan ka tirsanahay iyo dowladda dhexe iyo ciidamada Amisom iyo cid walboo danaynaysa nabadgelyada dalka Soomaaliya. ma ahan ururkan urur mucaarad ah, urur kasoo horjeeda dowlad maahan, urur kasoo horjeedo maamulka koonfur galbeed diidan maahan. ciidamadan waxay ku garab yihiin ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada dowladda dhexe inay la shaqeeyaan. kuwa cadaawada ahna ama colaada ka wada dalkana
god alla godkay ku jiraan ayagaa dalka yaqaan dalka iska leh ciidamadan shacabka inay badbaadiyaan loo baahan yahay ciidamadaasna kulleyba saraakiishooda iyo waxooda waa la habeyn doonaa waxayna hoos tegi doonaan maamulka koonfur galbeed tan kale qurba joogta oo ku abtirsata gobolka shabeellada hoose ayana waxaan leeyahay aqoontaad leedihiin dadweynaha inaad ka gadaan oo aada u sheegtaan shacabka inay isku midoobeen hal mabda oo ah badbaadinta shacabka shabeellada hoose wax qabiil la yidhaha inas jirin dadka ku abtirsada gobolka shabeellada hoose nabadoonadooda culimaadudiinkooda hooyooyinkooda dhalinyaradooda waxay u guntideen inay shacabkooda badbaadsadaan wadankooda nabadgeli ay kusoo celiyaan marka dadka qurba joogta waxaan leenahay nala qaata go-aanka aan qaadanay nagu taageera aqoontiina khibradiina wax walba annagana ilaahay garabkeena ha galo annagoo kaashanayna ilaahay ka sokona ciidamadeena waxaan rajaynaynaa goordhow inaan guul la gaari doono cid walbo cadow ku ah gobolka shabeellada hoose shacabkiisana waa la iska dhicnaa ciddii nabad rabtana cid alla ciddii nabad u baahanna gacmo furnaa kusoo dhaweynaynaa annaga dad dulma mani daldadaad kuma duulin goboladaad kuma duulin gobolkeena ayaa nalagu yimid cidna gacan uu laawo mayno tan kale laa shacabka waxaan leeyahay oo i dhegeysanaya qurba jooga anigoo ka magaca ku hadlaaya ah magaca deegaanka gobolka shabeellada hoose mas-uuliyiinteeda kaas ahaan waafowna ka wakiil ah cabdiqane waa joogaaba shirka waxaan u kala daadanay howlo badan iyo colaad badan jirta aawadeed marka anagas isoo wakiishay dadka qurba joogkana waxaan leenahay annaga waa isku duubanahay rag iyo dumar habeenkeena ayagana waxay ballan qaadeen inay dhiisha caano biyaha cabitaanka meel kastoo ciidamadaasay galaan inay la galaan ayagana hooyooyinka ballankaas waa naga qaadeen culimaadudiinka waa naga ballan qaadeen odayaashana waa naga ballan qaadeen annagana inaan u dhimano dalkeena u dhaawacano u rafaadno way naga go-an tahay cid walba argagixisa ahaado koo colaad gobolka danka leh shaksiyad ha ahaado in aan iska dhicinaa naga go-an ilaahay idinkiisa waan iska dhici doonaa nin alla ninkiina soo hujuumana jab iyo halaagaas la kulmi doonaa cara ninkeeda iska leh cid aan ka hebaysanan male ilaahay ka soko marka burcad badeedyada naftirkooda argagixisada waa ka daran tahay oo gobolka dagaalo badan iyo guryo badan gubay rafaadsaday hadda kuwaas waa gabaabsadeen wax ay yihiin male wax yar oo madaxa ka dilidaa dhima maxoog iyo meelaha dhan waa laga jebiyey kuwa hadda soo rugcaaday oo ayagana diinta beenta sheeganaya ama argagixisadana ilaahay idinkiisa 2 bilood ma noo qaadan doonto god ama ceelkay biyo ka cadayaan ama meel kasta waa laga duugaa waa nool dagaalama wax walba ay suubiyaan awooddeeda ilaahayna siiyey dad dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa aan nahay guul aan u dambayn doontaa gobolka